maamulka Jubbaland oo si adag u bahdilay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyo dowladda dhexe xilli uu soo dhaweystay dalka Kenya. maxay tahay sababta uu madaxweynaha Jubbaland u kala doortay dowladda dhexe iyo sidoo kale Kenya? muuqaalkan ayaan kugula wadaagi doonaa daawade, laakiin intaan u guda gelin muuqaalka like saara, sii share garay oo la wadaag saaxiibada, sidoo kaleetana boggaan follow soo dheh si aad kaga mid noqoto saaxiibada ku xiran. mahadsanida. aynu ku bilownay hogaamiyaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa bayaan uu soo saaray maanta waxa uu ku bahdilay madaxda Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, khaasatan madaxweynaha dalka ahna taliyaha ciidanka xoogga dalka Soomaaliyeed oo labadii maalin ee la soo dhaafay booqasho ku joogay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland. madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa maalintii shalay ahayd ka dhigay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland, iyadoo halkaasi kulamo kala duwan uu kula qaatay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Madoobe. kulamadaasi oo ay albaabada u xirnaayeen waxaana madaxweyne xasan sheekh maxamuud iyo sidoo kale hogaamiyaha Jubbaland ilaa iyo 3 is arag oo ay kulamo ku yeesheen hoolka soo dhaweynta magaalada Kismaayo ee dhanka iyo xeebta. waxa uu noqday mid ku soo gabagaboobay fashil, iyadoona madaxweynaha dalka uu ku soo guriyo noqonayo hoygiisa Villa Soomaaliya, waxaana garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan ka soo sagootiyay hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. waxaana qoraal uu soo saaray hogaamiyaha maamulkaasi uu ahaa sidatan: madaxweynaha dowlad goboleedka Jubbaland Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe ayaa maanta garoonka diyaaradaha Sayid Maxamed Cabdulla Xasan waxa uu ka sagootiyay wafdi ka socday dowladda federaalka Soomaaliya oo shalay booqasho ku yimid Jubbaland. dowlad goboleedka Jubbaland waxaa mar walba ka go'an isla markaana ay cadeynaysaa inay ka go'an tahay kala aragti duwanaanshiyaha u dhaxeeya dowladda dhexe iyo sidoo kale maamulka Jubbaland in lagu wada xaliyo miiska wada hadallada, isla markaana loo midoobo sidii loo xalin lahaa ajandayaasha waaweyn ee dalkeena u yaala, iyadoo lagu heshiiyey in wada hadallada ay sii socdaan isla markaana kulamo kaleeto oo kala duwan lagu yeesho si xal waara looga gaaro wada hadallada u dhaxeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo maamulka Jubbaland ee uu hogaamiyo Sayid Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe. sidoo kaleeto maamulka Jubbaland madaxweynaha maamulkaasi ayaa waxa uu uga mahad celiyay shacabka maamulkaasi niyad samida ay muujiyeen iyo sida ay uga go'an tahay in ay sii ilaashadaan mabaadi'da iyo sidoo kale qadiyadooda gaarka ah ee maamulka Jubbaland, sida lagu sheegay bayaanka war-saxaafadeedka ee ka soo baxay madaxtooyada maamulka Jubbaland. sidoo kale maamulka Jubbaland qoraalka ay soo saareen ayaa lagu sheegay in Jubbaland ay uga mahad celinayso dowladda Kenya dadaalada ay ku bixinayso sidii loo afjari lahaa kala aragti duwanaanshiyaha iyo sidoo kale xalinta khilaafaadka Soomaaliya. sida lagu yiri bayaanka maamulkaasi uu soo saaray, tani waxay u muuqataa in maamulka Jubbaland uu soo dhaweysanayo dowladda dalka Kenya isla markaana uu ka sii dheeraanayo dowladda dhexe ee Soomaaliya. waa la filayay arintani iyo in warqadani ay ka soo bixi karto maamulka Axmed Maxamed Islaam Axmed Madoobe, maadaama tan iyo shalay markii madaxweynaha jamhuuriyadda uu gaaray magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland uusan soo saarin warqad maamulkaasi uu ku soo dhaweynayo wafdiga ka socda dowladda federaalka Soomaaliya. maamulka Jubbaland ayaana ka aamusay inuu ka soo hadlo booqashadii uu madaxweynaha dalka uu ku tagay halkaasi. sidoo kale maanta warqadda uu soo saaray maamulka Jubbaland waxaa laga ilaaliyay magaca madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, taa oo cadeynayso khilaafka adag ee u dhaxeeya dowladda dhexe iyo maamulka Jubbaland. hogaamiyaha maamulka Jubbaland ayaa ku andacoonaya in doorashadii uu ku soo baxay ay tahay mid dastuuri ah isla markaana uusan ka laabanaynin, iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay cadaadis ku saartay in Axmed Maxamed Islaam Madoobe uu ka laabto
qodobkii ahaa doorashadii uu sida iskiisa u qabsaday isla markaana uu isugu caana shubay magaalada Kismaayo ee dowlad goboleedka Jubbaland waxaana tani ay noqonaysaa wajigabax siyaasadeed uu la kulmayo madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya iyadoo sidoo kale warqadda ka soo baxday Jubbaland ay cadeynayso in maamulka Jubbaland aysan diyaar u ahayn wada hadal ay la gasho dowladda federaalka Soomaaliya madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa si jikatooranimo waxa uu la dheelay arrimo siyaasadeed maamulka Jubbaland isagoo u cadeeyay beesha caalamka in Axmed Madoobe uusan diyaar u ahayn in wada hadal uu dowladda federaalka Soomaaliya uu la galo taa uu ku cadeynayay in magaalada Kismaayo uu ugu tagay Axmed Madoobe laakiin wali wax natiijo aysan ka soo bixin wada hadallada dowladda dhexe ee Soomaaliya iyo sidoo kale maamulka Jubbaland daawade haddii aad soo gaartay dhamaadka muuqaalka like sara si share garay oo la wadaag saaxiibada sidoo kale qaybta hoose ee faalada inagula wadaag aragtidaada mahadsanida